waxaan ku qanacsanahay maantay inay marxaladda la joogo daruuri tahay in gabdhaha kaalin muuqata ay mujtamaca dhexdiisa ku yeeshaan siyaasadda inay ku yeeshaan matalaadda inay ku yeeshaan taasay ku timaadana dee in kootada loo xadidaahay oo la yiraahdo numberkaasa gabar loo xadiday maxaa la yiraahdaa muhiimad gaar ah ay leedahay xilligan la joogo muhiimadaasa keenaysa inay dee gabdhihii dowr yeeshaan in la arko cala aqal yani gabadhii aan meelay siyaasadii ku mumaarasayso ama ay ku samayso aan haynin si loo tusiyo kaalinteeda mujtamaca waxay u baahan tahay in marka hore horta saaxada la soo geliyo saaxadiina sooma gelayso ilaa doorasho xor iyo xalaal ee dalkii ka dhacdo qof walba banaanka intuu mikrofoonkiisa qabsado ra'yigiisa uu sheegan karo mujtamaca soo jiidan karo ee uu tartami karo ee dadka hortiisa imaan karo aniga hadda mar dhow galmudug aan ka soo shaqeynay gabdhaha nugaasa teamkaani waxa waaye waa nala joogeen oo xagga waa laga wada shaqeynaa waa isla joognay in kamida waxaan xasuustaa doorashadii markii la doortay baarlamaanka galmudug gabaraa murashax ahayd oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka u tartantay gabadha waxaan hubaa inaysan haysan ama inay helin fursada rag badan ee la mid yihiin oo tartamayo wax raadsanayay ama xataa kuwa ayada kursiga kula tartamaya fursada ay haysteen oo kale ma aynan helin laakiin shakhsiyadeeda qanaacadeeda shakhsiga ah dareenkeeda gabdhihii kale oo gacan siiyay marka loo fiirsho waa campaign gareysay si fiican campaign qurux badan ay samaysatay waxayna noqotay gudoomiye ku-xigeenkii maxaa la yiraahdaa golihii ku soo baxdo oppositionka ay raadinaysay ayay heshay gabadhu marka dhinacna waxay u baahan tahay shakhsiyadeeda ayadu inay isbaatiso oo ay dowrkeeda qaadato oo ay muujiso qofnimadeeda inay muujiso dhinacna waxay u baahan tahay mujtamacii ku sabood gareyn lahaa oo ku taageeri lahaa inay heerkaas gaarto inay hesho marka waxaan isleeyahay waa laba mowqif oo si fiican loo heshiisiin karo in gabdha xilligan laakiin la joogo kooto in loo xadido oo la yiraahdo numberkaas ama kuraastaas gabdhaha loo dhaafay waxaan isleeyahay ahmiyad gaar ay u leedahay gabdhaha ahmiyad ay ugu fadhisaa macnay ugu fadhisaa xilligan inay siyaasadda qayb ka soo noqdaan oo mujtamaca la baro dowrkooda iyo kaalintoodana muhiim ay tahay